السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام يا دمان ومدى الصوماليات مالو البوء أي جوغان magacaygu waa Aboota Sahra. maanta waxaan ka hadlayaa oo run ahaantii aad iyo aad dareenkayga u soo jiitay. waxaanan jeclan inaan ka hadlo ama aan soo hadal qaado ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo. waxaan arkay maalin dhexdaas anigoo Facebook jooga gabar Xamdi Galgacal la dhahayo oo dhahaysa gabooyo baan ahay, dadkuna ay soo caayayaan oo leeyihiin gabooyo midgaanay boonay madhibaanay balaayo noocaas. YouTube-ka haddana sidoo kale waan ku arkay xataa dadka soo qaadanayo YouTube-ka soo gelina waxay leeyihiin gabadhii gabooyada ahayd, gabadhii madhibaanka ahayd iyo waxyaabo noocaas. horta gabadhaas waa gabar aad iyo aad run ahaantii geesiyad u ah. inkastoo markaan arkayay ay dad caynaysay oo yeelkada qofka cayda ha caydo, waa qofka asaa iskale hobbigiisa wuxuu rabo u sheegin karaa. marka laakiin tan ah macnaha qabiilka oo Soomaalida runaantii aad iyo aad ay ugu dhimatay oo ah macnaha faquuqa gabooye oo in la faquuqo intaasoo magac loo bixiyay. gabooya loo bixiyay, waxaa loo bixiyay madhibaana loo bixiyay, midgaan baa loo bixiyay, boon baa loo bixiyay. bal fiil xaggee ka imaadeen markii hore? xaggee ka imaadeen dadkan faquuqayo? xaggeed ka timaadeen sa idinku? horta waxa aan ka aqaano anigu gabooyaha iyo gabarka ayaan rabaa inaan maanta idinkaga dhaco. gabooyaha waxaa la yiraahdaa Maxamed Gurgaati, gabarkana waxaa la yiraahdaa Maxamuud Gurgaati. anigu waxaan ahay Maxamuud Gurgaati, Maxamedna waa adeerkay, waa curadka oda Gurgaati. wuxuu uurka nooga soo horeeyay anagoo caloosha hooyo horteen ku soo qaaday. horteen baa naaska la jaqsiiyay oo asiga gorkii ama yirkii kala baxay hooyo. waxa marka dadka faquuqaya ee dhahaya ama lama guursan karo, lama guursan karo, lama fadhiisan karo, cunto lama cuni karo, lama sheekaysan karo, lama saaxiib karo. taariku salaad ba taariku salaadka ayaan la guursan, taariku salaadka ayaan la salaamin, taariku salaadka ayaan la sheekaysan, taariku salaadka ayaan la cuntaynin, taariku salaadka ayaana la guursanin. anigu sidan xaqiiqda ku hayo Maxamuud Gurgaati iyo Maxamed Gurgaati waa laba nin oo isla dhasheen. aabahood baa hadda kahor wuxuu u diray oda Gurgaati ayaa sahan u diray. faquuqan iyo balaayadan halkuu ka yimidna waxaa ku dhigay waa aabihii Gurgaati, reer Maxamed. reer Maxamed waxa faquuq iyo balaayada ku dhigay waa aabahood Gurgaati. Soomaaliyana waxay faquuqdo way faquuqan yihiin, waxay jeclaatana way jeclaysan yihiin. wallahi waxay nacdo way nacan yihiin, waxay jeclaatana way jeclaysan yihiin. Maxamed Gurgaati iyo Maxamuud Gurgaati sahan baa aabahood u diray oo meel aad u fog ah. marka wuxuu kula dardaarmo markii ay baxeen Maxamed iyo Maxamuudow, markii aad aragtaan hal dhimatay oo goor dhow dhimatay, oo aan tasqi iyo waxaas wali gelin, oo dhimatay goor dhow markaad aragtaan oo wadada dhex taalo, hashaas wax yar ka cuna oo miirka ka ceshta, hilibkeeda ha ka dhergina, hana qaadanina, wax yar uun ka ceshta, nafta ka ceshta kana taga. wiilashii ayagoo socda Maxamed iyo Maxamuud ayay waxay u tageen hashi meesha tiilay. anigu waxaan ka baqayaa inuu adoogo asugu intuu ordo hasha meesha ugu soo dilay meesha u dhigaba, waa ka yaabanahaba. hashi ayay markay arkeen ayay cuneen. Maxamuud wuu ka miirsaday, Maxamedna wuu ka dhergay. markaasuu wuxuu yiri Maxamuud wuxuu yiri walaal Maxamed, aabo wuxuuna dhahay hilibka aad ha uga dhergina oo caloosha ka buuxsanin oo wax yar ka cuna maxaad sidan u sameynaysaa? markaasuu wuxuu yiri gaajo baan baa haysa, xitaa kis kamidana waan qaadanayaa. kiskii kamid ahaydna wuu qaatay, kisna wuxuu ku qaatay baalkiisa, faraqiisa bacyo waxaas ma jirin, maradu watay uu ku qaantay. waa ay baxeen. markay gurigii tageen ayaa aabihii wareystay maadaama ay niman sahan ku maqan ay ahaayeen. markay imaadeen oo aabbo u imaadeen oo la sheekaystay ayuu weydiiyay akhbaartooda iyo
waxyaabihii uu kula ballamay inay heleen iyo waxyaabahaas ayuu weydiiyey. wuxuu ku yidhi maxamuud baa soo booday, wuxuu ku yidhi aabe haa hashi waan aragnay godka tiilay, meeshii gureedka tiilay waan cunay, aniga miirka baan ka ceshtay kama aana dhargin. maxamed wuu ka dhargay, bal fiiri midkii ka heraaya rufiyaanaya fiiri waan ka dhargay, maxamed wuu ka dhargay, anigana wax yar baan ka cunay buu yidhi. maxamedna kis ka midana wuu qaatay buu yidhi, baalka ayuu kusoo qaatay. intaan wadada kusoo jirnana labadii maalin oo kale wadada kusoo jirnana maalin ka mida ayuu cunay. aabihii wuxuu yidhi maxamed saacadan laga bilaabo yaan cunto lala cunin. ilmi wuxuu ku yidhi cunto hala cunina, hala fadhiisanina, hala sheekaysanina, weelkiisa gooni uga dhiga. maxamed sidii baa gooni weelkii looga dhigay, sidii baa lagu fuquuqay. aabihiiyaa ku fuquuqay, walaalihiisaa ku fuquuqay, hooyadiisaa ku fuquuqday. ma maqlaysaan? walaa hooyo yaana nabin, anugu hooyo ma ogi, laakiin aabihii Gorgati ayaa sidaa yeelay. kadib waxaa jirtay xiliyo suugaano laysugu imaaday. markii suugaanta laysugu imaaday markaasay waxay dhaheen nimanka gabooye, horta magac iyo madane maalin bay dhacaan, ma la celin karo. horta magac hadduu dhaco wuu dhacay kaba gudaba, fuquuqina wuuba dhacaba, laakiin waa laga soo noqon karaa. maxaa yeelay diinta islaamka hadda maanta nin maxamed Gorgatiya hadduu gabar kaasoo doonto adoo maxamuud Gorgatiya kuma daraysid, laakiin hadduu kaasoo doonto taariku salaadka qaacanka aan dukanin, ilaahay ka baqin, xoolaha islaam ducan iyo xalaal iyo xaraan kala qoon, hadduu kaasoo doonto waad ku daraysaa. ninna sabo oo dukanayo oo salaadiisi dukanayo oo maxaa dhahay sheeg noloshiisu qurux badan tahay, ayad in gabadhaada u diidad nin waxaad ku daraysaa taariku salaad oo nolol aan aqoonin oo maxaa dhahay sheeg wuxuu hoggaan. horta ninkii janno galaa bilis soo boon iyo bilis boon iyo bilis maxaa boona maxaase bilis hooya isla kiin dhashay, aabaa isla kiin dhalay, hashi oo jidka tir waa isla soo cunteen. Soomaali maxamed aysan maxaad ka wadaan? marka waxaa jirtay xilli suugaan la isugu imaado baa jirtay. markaasay waxay dhaheen reer maxamed Gorgati wuxuu yaheen inkastoo nada suugaanta aniga wada xasuusan, waxay dhaheen baa la yiri Gorgati waa isla soo galanaa, gorkii hooyana waa isla nuugnay, hashi gureedka tiilna gowska waa isla saarnay, hashi dhimato waa isla cunay. macnaheedu hashi gureedka tiilna gowska waa isla saarnay, ma gobolkan goonida u qaatay ayaad ii gaboysan oo aad gooni igu bixisaan. suugaan noocaasna way jirtay. xilligiis aad barre mar la yiri gabooy iyo waxaas lama sheegi karo, cidna lama fuquuqi jiro, ayaa nin la yiraahdo Boonlugay sida aan ku maqaalahayo ayaa wuxuu dhahay la yiri yacni maadaama aan la leeyahay yaan boon qofba lagu fuquuqin, yaan gabooy iyo waxaas la isku fuquuqin, maadaama aad leedahaan macnaha ma isguursan karnaa oo anigana gabar ma laysiin karaa, idinkuna ma guursan kartiin, anagana midin guursan karnaa. asoo ka hadlay barnaamij noocaas ayuu wuxuu yiri dhab ay ugu dhexyaraatayee haleysku dheehmo maad dhahdeen, dhab ay ugu dhexyaraatayee haleysku dheehmo maad dhahdeen. yacni dhab dadka inta badan ma fahmayaan. dhabta waxaa la yiraahdaa saliga ama dirinta ayaa la yiraahdaa. marka wuu cabuubnay afar kogooda buu ku fadhiyay. marka wuxuu yiri haleysku dheehmo maad dhahdeen, dhab ay ugu dhexyaraatayee may la isku dhehma lama dhih. maxaa yeelay ninka waxaaba dhalad ma ahan baa lagu leeyahay, dhalad ma ahan, nasab ma ahan, nasabkiisa yaa dhimay, ma hilibkii yaraa uu ka dhargeeyaa nasabkiisa dhimay? maya, anigu ma aaminsanay. diintuna way ka hadashay sida ay ila tahay, diintuna way ka hadashay sida ay ila tahay, wayna og tahay in ay yihiin yacni reer maxamed Gorgati dad dhalad ah, way inaan lagu fuquuqi karin. yacni hilib ay cunaan oo ay ka dhargeen, hasha baktiga waa la wada cunay, baktiga waa la wada cunay, laguma fuquuqi karo bakti ay cunaan, maxaa yeelay kaligood ma cunin, waa la wada cunay. tan kale maxamuud Gorgati meel maba soo gaari lahayn ba haddaan maxamed Gorgati garabka soo qaba lahayn. ma taqaanaan sida ugaarta loo ganta, ma taqaanaan sida midida loo tunta, ma taqaanaan sida waranka loo tunta, ma taqaanin digsiga badarka lagu cuno sida loo samaysta, ma taqaanin daday kacaddaha tihiin, kabaa sida loo tasha ma taqaanin. markaasaa waa la isku caaya kabahan talaa kabaha la isku caaya, maba waaba cagahadba ka gubanaysaa, maba taqaanin si loo tashay, maxaa dad ugu caydaa? gaarsiiye xamdi galgacal iyo dadka caynaayo oo dhahaya dadka horta ha soo baxaan. aawan dadka horta kaligeed miyaa ishee gabooye ka xamdi galgacal bismaa gabooye ka nool, may soo baxaan? aawan dadki way buuxaane, may soo hadlaan, may dadkan iska celiyaan?
gabadha maalin kasta gabadhii gabooye gabadhiisaana ku haaya maxaa odayaal xili siday ablay loogu daabayacayo weliba aflaagaada keenay soo baxa marka waxay tiri maar aan fiidiyogeeda dhegeysanaba waxay tiri cidaydaba waxay igu yiraahdeen ummadan ka leexo hana fashilin macnaha qolaa nagamida aan soo maxaa leedin ka fashila maxaa tiin dad madaxdan dad madax xoogtay dad dhaladoo leeqanatiin Soomaalida Ameerika ka yimideen aan la aqoonin ka buuxa bacala idin ka buuxa mana faquuqdaan oo dad meel ay ka imaadeen la aqoonin Soomaaliya ka buuxa lamana faquuq lamana caayo waa la guursadaa waa gabadhiina guursadaan wiilkooda guursatiin maxaad ka uruseen reer maxamed gorgaati maxaad ka uruseen aniga hadda way soo wararan ka baqaa marka waxaan idin leeyahay reer maxamed gorgaati dad dhalada oo dhashay tihiin isbarta inaan dadka qaar inaan fahamsanayn dad waxay aaminsan yihiin yani meel ka yimideen inay awoon markasta lafgaabatiin nasab dhimanaatiin lagu caynaayo lagu meel ay ka yimaadeen ma ogaada hadda in aad tihiin curadka maxamed gorgaati in aad maxamed gorgaati yani aad u soo banaysan caloosho ogaada inaad naaska hooy hortood jaqdeena ogaada inaad idinku gacantiina wuxuu soo koriseen ogaada waxa idin faquuqay wuxuu yiri ninkii aan barbaarshaa baalkayga galiya ugu baahloobay xaggan kaga badbaadaa marka ilmahaad soo koriseen deesaas idin galayaan oo idinkana aad leedihiin yaana fashilin oo waa dhuumanayna banaanka ka soo baxa banaanka u soo baxa banaanka dad badan oo idin heli doonta mar hore ayaa leedin cunsurideeyay oo meel leedin ku xiray dad idin heli ayaad heli doontaan waa leedin guursanaa waa leedin ka guursanaa waadna naga guursanaysiin soo dhawaada welcome dadku waxay rabaan ha sheegaan laakiin waxaan ogahay inaad nasab dhalatiin reer maxamed gorgaati xagee lafka ku noqoteen waxyaabo badan ayay awood og tahay oo idinka qarsoon laakiin insha Allah taala waa soo bandhigi doonaa aniga qabiil iyo jinni iyo qashin inaan ka hadlo ma jecli laakiin run ahaantii waxaan aad iyo aad dareenkayga u saameeyay gabadhaas Xamdi Galgacala oo runtii aad iyo aad uga hadashay arrimo muhiim ah kuna faantay run ahaantii qabiilkeeda yani la faquuqay la qarqariyo qabiilkayga inaan qariyo ma aha ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa diinta noogu sheegay in qabiilka la isku aqoonsado laakiin aan la isku qabyaalad ahaan loo isticmaalin okay run ahaantii aad iyo aad ayay arrintan u xasaasi badan tahay aad iyo aad aan run ahaantii ugu faraxsanahay in gabar macnaha gabooyo ah oo la faquuqo iyadoo aan dareensanayn in la faquuqo iyadoo oo faraxsan oo qoslaysa oo dhiqlaynaysa ku dhacaya dadka luuqa gelisa luuqa marka waxaan leeyahay Xamdi Galgacal hore u soco dadka dhacaysan iska dhaaf laakiin qabiilkaaga difaaco u sheeg inaadna midgaan ahayn u sheeg inaadna lafgaab ahayn u sheeg inaadna nasab dhiban ahayn u sheeg inaad dhalad tahay hashi dhimatana aad wada cuntaan u sheeg waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.